wasiirada maaliyadda Soomaaliya iyo Djibouti ayaa saxiixday heshiis lagu dhisayo waddo isku xirta labada wadan si loo kobciyo dhaqaalaha iyo horumarka bulshada. waxaa magaalada Sharm el-Sheikh ee wadanka Masar ku qabsoomay shirka 17aad ee wasiirada maaliyadda iyo iskaashiga dalalka Geeska Afrika. shirka oo looga hadlayo qodobo dhowr ah oo xambaarsan horumarinta dalalka Geeska Afrika ayaa markan waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray isku xirka dalalka Soomaaliya, Djibouti, Itoobiya iyo Kenya oo loo sameynayo wadooyin waaweyn oo isku xira si loo horumariyo ganacsiga dalalka Geeska Afrika. mashruucan isku xirka dalalka Geeska Afrika wajigiisa koobaad ayaa waxaa nasiib u helay in lagu bilaabo Soomaaliya iyo Djibouti iyadoo filinta mashruucan uu mas'uul ka yahay Bangiga Horumarinta Afrika. waxa uu si gaar ah u saxiixay mashruucan dhismaha wadada isku xiri doonta Djibouti iyo Soomaaliya wasiirada wasaaradda maaliyadda ee labada wadan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur iyo Ilyas Muuse Dawaale. runtii jidkani wuxuu yahay jidadka baahida xoogga loo qabo oo ummadda Soomaaliyeed aad ugu baahan tahay isku xidhaya saddexda dal isku xidhaya runtii muxuu ahaayay wax weyn ka tari doona dhaqaalaha iyo isku socodka muxuu ahaayay mandiqada iyo shacabka aad uga tari doona. waxaan runtii aad ugu mahad celinayaa muxuu ahaayay bangiga muxuu ahaayay Afrika oo runtii muxuu ahaayay xoog iska saaray xil gaaran iska saaray muxuu ahaayay jidkaasi inuu muxuu ahaayay dhammaado feasibility study-giisii isla markaana dhaqangelintiisii iyo dhismihiisii oo markaasi wajigiisii koowaad u bilowno taasoo rajaynayna in muxuu ahaa wajiyada badan ku sii xigi doonaan oo jidkaasi insha Allah uu dhamaystirmi doono. waxaan aad uga mahad celinayaa walaalkay wasiir Ilyas oo runtii ahaa wasiiradii sida xoog leh uga soo qayb qaatay in muxuu ahaayay ay himiladaasi ay hirgasho oo muxuu ahaayay runtii muxuu ahaayay u soo muddo dheer ka soo shaqeeyay. waxaan aad uga mahad celinayaa regional director-ka Nena oo ah muxuu ahaayay African Development Bank oo runtii hawlo fara badan muxuu ahaayay nagala qabatay muxuu ahaayay maantana halkan ku soo gabagabaynay inuu face-ka koowaad muxuu ahaayay uu dhaqan galo. waxay ka mid tahay jidkani jidadka badan ee doonayno inay muxuu ahaayay isku xidhaan wadamada Geeska Afrika oo himilada muxuu ahaayay isku xidhka Geeska Afrika oo ay golaan wasiirada u dhan yihiin maantana halkan goob joog uga ahaayeen iyadoo muxuu ahaayay aanu joogno Sharm el-Sheikh oo aan muxuu lagu soo gabagabeynayo ama uu ka socdo shirka sanadlaha ee Bangiga Afrika oo markaasi uu ka socdo. sharaf bay noo tahay inaan muxuu ahaayay runta maanta halkan goob joog u noqono in jid muxuu ahaayay muhiimad leh aan dadkeena iyo dalkeena muxuu ahaayay runtii aan u dhagax dhignay una saxeexnay. marka taas runtii muxuu ahaayay aad iyo aad noo muxuu ahaayay dhiirigelinaysa. in badan baan ka soo shaqeynay annaguna maanta Ilaahay wuxuu nooga dhigay fursad inaan aan saxeexno annagoo wasiiradii Geeska Afrika ku dhan u wada dhan Horn of Africa Initiative mawduucan aan leenahay waa ku saamaxaya oo dhib yareynaya isdhexgalka mandaqadeena. Cilmi oo maanta walaalkay oo wasiirkii federaalka ah ee Soomaaliya waxaan aad ugu hambalyeeynaa inuu Ilaahay fursad noo siiyay oo intan waa hordhac waa phase-kii koobaad mashruucan waxaan jecelnahay inuu halka iyo boora maxalliga uu gaadho mashruucu ka sii socdo Itoobiya ilaa Jigjiga uu galo. waxaan ognahay kale mashruucyo kale oo dariiqyo isku xidhaya iyakuna min kaga soo qaba Kenya ilaa iyo Kismaayo ka imanaya halka iyo Muqdisho oo rajaynayno inuu gaadho in Djibouti isagoo dariiqyo badan oo kale oo soo dhaxmarayo. mashruucan waxa kale uu keenaya Itoobiya inuu yadna in fudeediyo in wax kala weydaarsada sidan wax u kala weedaarsanayno bay'ac musharka. dhismaha wadadan ayaa wax badan ka tari doonta isku xirka bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika. waxaana wajiga labaad ee mashruucan lagu dhisi doonaa wadada isku xiri doonta Soomaaliya iyo Kenya.